mahad alla ka suko waxaan u mahad celinaynaa anagoo ah jamciyadda Nahrayn al-Khayriya gabdhaha jooga Denmark magaalada Aws tuulada Baqa kuwaasoo maantay dadkan barakacayaasha ugu deeqay inay gaarsiiyaan wixii karaankooda ah jamciyadda Nahrayn ee khayriga ah howlaheeda wuxuu ahaa inay ka shaqeyso samafalka waxayna fulisaa inta badan waxay bixisaa ay dhiibtaa waxyaabihii loo soo dhiibtaa ay wax ka bixisaa ayna dhiibtaa maantay gabdhaha Holland waxay u soo dhiibteen qarash ay ugu talagaleen inay gaarsiiyaan walaalahooda barakacayaasha kuwaasoo ka soo barakacay dagaaladii gaajada ka jira dalka gobolada Soomaaliya waxaan leenahay qofkaas soo wakiilaseen oo ahaa Sahra Maxamed Maxamuud waxaad u soo dhiibateen wayna soo gaarsiisay anagana waxaan gaarsiinay meeshii loogu talagalay anagoo mar walibana u taagan inaan gaarsiino barakacayaasha wax walba loo soo dhiibto waxaana jecelnahay inaad noqotaan dad hawshooda hor u sii wata waxaana idin xasuusinaynaa walaalayaal in bishii barakeysneed ee soonka ahayd nagu soo beegan tahay hadduu Ilaahay yiraahdo aanba dhaxgalnayba hal maalin inooga dhiman tahay waxaana jecelnahay dadkani inaad kala soo gaartaan afurka bisha soonka ah inta karaankiina ahba mar labaad hadaan idinkugu celiyo gabadhaad wax u soo dhiibateen oo ahayd Sahra Maxamed Maxamuud oo wakiilka idinka waxaad u soo dhiibateen wayna soo dhiibtay anagana waxaan gaarsiinay dadkii loogu talagalay waana idin mahad celinaynaa Ilaahay